بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaa daawanaysid ma aha qubanihi waa shir jaraa'id oo ay wakiisheen shacabka reer Puntland iyo xukuumadooda. shirka jaraa'id wuxuu daaran yahay hadalkii ka soo yeeray mudane Xasan Sheekh Maxamuud Xasan Munaafiq madaxweynaha qaranka. hadal ka soo yeeray hadalkaas oo habaar u badnaa, gaf u badnaa, cay u badnaa Puntland lagu dhaleecaynayay dadka jooga dadka xukuumadda haya iyo siyaasiyiinta ka aragtida duwan lagu garaafeeyay oo laga soo qaaday inay yihiin kuwii qoriga wax ku raadin jiray ama uu yiri hadaladiisu u dhigay Puntland way dumaysaa 24 maalmood gudahood. hadalkaas aan rabaa caawa inaan ka bixiyo jawaabtaas oo ay soo wakiisheen shacabweynaha reer Puntland iyo xukuumadooduba. ma fili doono sida la ballan qaaday in cid gamow ama mas'uul kale uu ka daba hadli doono ama ka jawaabi doono, laakiin jawaabta rasmiga ah aniga uma bixinay aan la soo wakiish. madaxweyne Xasanow inaad munaafiq tahay ayaan halkan habeen hore ka sii daayay. xadiiskii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee saxiixa ahaa ee ka hadlayay munaafiqana saddexdiisa calaamadoodna waa kugu dulyeeri oo waa kugu ansaxma. إذا حدث كذبه وإذا وعد أخلفه وإذا تؤمن خان. هدو شاكية بين بكو شاكية هدا آمنته وخيامية هدا وعد قشان وخلافية. تاوحا أقول لي كاميرا ما أنت أتكون هاللي سي كاميرا دي كوغو حكتي لأتر السؤال هاللي ويدي waxaad ka sheegtay siyaasadda Puntland siyaasiyiinta Puntland in ishaynba markaan soo fariistay oo kugu cadeeyay oo qodobada aad isku haysaan inta shiro aad ku kala kacdeen wixii kugu cadeeyeen hidka ku gaaray maanta aad habaar ka kacday habaar waa aniga oo kaliya waxay ku gaarsiiyay Puntland kama soo jawaabin arrintaas. Puntland isma hayno iyo wadada ku rooyay shacabkeeda oo qurux badan yahay iyo siyaasad isku hayno arrintii ahayd madaxda reer Puntland kama soo jawaabin. أنا كاجا جوابي أنا هيد كوجارسيي ما أنت أنا محي كلفتي إن أتسو استخدمت بابليك أدوها بهرنتي وحكتني إن هذا الكلية وأتكأس له بيستي غير بطل أنا وأي عيد الشيء وعلى يد وصا إن أترهيد كلية بتكأس له بيستي ما أنت لكن حوم هذا الريبان من عيد كوجو حارب عليه علوش يسوق كتصيح وحكومة دمين حسنا وهذا الكمال بقول انتهى بنتلان أفر لا تسني ترتاح فاتحكم سو غارين Puntland afar la tasjilay faataxo soo gaarin maxay ku soo gaad isima wax garado is ogolo walaala ah siyaasiyiin wax garado aqoon ilaahay siiyo walaala ah si kastay u kala aragti duwan yihiin miis waxooda ku dhamaysta qalin ku dhamaysta isin talada looga dambeeyo oo hadii la ku rooyahay halka ciidamadiisa wuxuu dhibaan laga daba hadlin si dastuur iyo kala dambeyn aan laga lexleexan la raaco intaas ay Puntland ku soo gaadhay. Puntland ma aha Hirshabeelle oo aan adiyaal ku rooyo maana leeyahay xawaala dhacay maana leeyahay abgaal baa dhacay ma aha Puntland ma aha galmudug oo maana leeyahay sacad baa isbaaro dhigtay maalna Saleeman bay isbaaro u taala maalna sacad bay u taala. Puntland ma aha gobolka Banaadir markii farmaajo adiyaal ku rooyo fadhiyay aad sayidka taalada sayidka qoryaha la hoos fariisanaysa ariyaha soobax maxamed soobax. Puntland ma Puntland madaxweynuhu dastuurkaas iyo kala dambeynta iyo shuruucda la dhigtay ku soo baxa haduu ku jiray meeshana ku jira. Puntland ma aha dad hadii madaxweynuhu xataa dhaliilayaan ama ka aragti duwan yihiin qori wax ku raadiya ma. Puntland aqliga iyo siyaasadda Soomaaliya laga xukumayaa Xasanow qori ma yaale aqli iyo aqoon baa taala na kala hagtay dastuur. Puntland Xasanow xaafadahaas ku khaldin taasi Xasanow waa Puntland man ku arifay haddaan ka soo gudbo. Xasanow hadda actionka aad bixisay maanta waxa ku xiga anigu waa ogahay aqoonna waa ku leeyahay waxa ku xigta adoo caloosh u shaqaystayaal soo adeejiya meesha u horeyso aad xabadda ka bilowdina ay noqoto gaalkacyo shacabka wada dega inaad dad caloosh shaqaystayaal ku soo xuduma tiraahid
qolada dila oo qoladaas ay indishay dhaha qoladana mar dila qoladaas ay indishay dhaha 5 sano oo aad maqnayd mudug meesha la yiraahdo hawiyaha iyo daaroodka wada degani nabad iyo nolol iyo naxariis bay ku noolaayeen 5 sano aad u joogtayna xabada ka socotay kow horta qodobka oo horeeyo aad fulinaysid waa ogahay waa halkaas qodobka labaad oo meesha ku yaala waxay tahay siyaasiyiin reer Puntland adeegso oo dani xabadaha laga horto taas wax dhacaya ma ana hadda ku sheegay ana hadda ku sheegay horeyna waad ugu fashilantay shantii hore ee waagi faroolay suuga soo gaaran Cabdiwali waad ku fashilantay waxaas wax badan oo noocaasna wad ma grisay waana ku socon waayay dadkuna waa kuwii niyo xasan oo dhageyso walaal adan doorasho qabsan lahayn iyo haddaan galgalan lahayn iyo haddaan darbiyada fuuli lahayn iyo haddaan daniquuxow 10 sano dama noo sii hay dhii lahayn maxaa noo ka gidisha maxaa doorashada Puntland ka galay 16 kilomitir isku weera oo xamar la yiraahdo baad xukunta ayada abni u samee arigii ku badbaadila ganacsada ku badbaadila hooya ku badbaadila ayada aqligaaga iyo garashada inta soo geysid qarax ay dhibaatada ka hortistaag taas waa mid tan labaad Hirshabeelle ka soo jeeda doorasho kaaga baahan ayada doorasho u jihee galmudug baa kaaga baahan doorasho u jidee mid kale aan kugu daro war Puntland waxa u gariiraysid ama u duminaysid wax kala ma hay siyaasad iyo saami qaybsi hayo simaadaan way oo hay tugsada war adiga hooyadaana waxa waa la adnaab galbaad hooyada iyo aabaha baad u cadaalad fali weyd oo meeshii dhanaan iyo meeshii macaan iyo bahalkiiba aad tiri kaalay caruurtaydo soo yaaca hooyadaana banaanka istaajis war ma adoo hooyada iyo aabaha cadaalad u sameyn waayay baano Puntland ka soo tagay cadaalad ku soo raasada war ma ano Puntland ka soo tagay ku soo raasada ina khayraadkii iyo Soomaaliya saxiixeedii iyo awoodeedii iyo hadii aan ku reeyo federalismkii inta baabi'iyo oo soo laabo miyaa ku dhax xasan oo doorashada aad u iijihe oo khayraadka Puntland iijihe oo hadii aan ku rooyahay dastuurka noo jihe oo adiga ku dhiibta adoo hooyada iyo aabaha u cadaalad fali waayay maya madaxweyne xasan munaafiq maya Puntland baa la yiraahdaa doorashada anagu aan qabsano markasta oo doorasho dhacayso dawladda federaalka banaanka istaagta xataa waxaan u diidnaa inay garoomada ka soo degaan xataa kuwa anaga naga dhashay ee xilalka ka haya ayaanu diidnaa inay garoomada ka soo degaan markaan doorashada ku jiro Puntland waa taas faataxo afaraanta sano aad sheegaysay faataxa kuma soo gaarin aqli muruq maskax dastuur iyo kala dambeyn ayaanu halka ku nimid habaarkan xiqdiga nasab xumada hadal xumada iyo waxa meesha taagan tahay waad u dhiman ka dhaakli waxba nagu yeelmays nin ciid kugu xaarayna calooshaadu ku tusay maahe waxba kuma yeelin aawa hadaladeeda waa dhowrsanayaayo maadaama de aysan qubalahayga ahayn shir jaraa'idoo la soo wakiishay wiil qodobkaas halkaas aan dhig siyaasiyiinta reer Puntland mid baan leh waan ogahay afkaan ku dhufanaya waliba waan ogahay xasan Puntland baa dumaysa hal badbaadiyo iskama oran kuwa ku daabanya kuwa xogaa ka cunay odayga kuwa xogaa ka cunay oo yiri anaga qalalaashadani ku kicinayna anaga kala tuurayna wax keen kuwa ku yiri waxayna soo qaat waqaashina waligii waxiin waqaashina laakiin wada hadalkeeni miiskeeni sideena aan haajirnay kuwa wax loo yeeriyaa anagu manihiin kuwa wax yeeriyaan bal anaga wax yeerina anaga dadka qoryaha u dhiibna manihiin kuwa qoryaha loo dhiibo xasanna waagi xasanow marka kulay anaga qoryaha dadka u dhiibna anaga qoryaha dadka u dhiibna waxaan kuleeyahay 2022 Febraayo kuwa qoryaha ku dhiibaan hoteelada sayidka seexo maalinta aad lahayd yuudnaati albaabka iga fura maalinta aad lahayd kuwa qoryaha ku dhiibaan anaguna kuwa qoryo loo dhiibaan anagu mani anagu garaw waa qoslayn dhikh baan ku hayn kuwaas anaguna hay kuwa qoryo loo dhiibay mani
kuwa dhulkooda gubana ma nihin kuwa isbaara dhigta ma nihin kuwa hooyooyinkooda canshuura ma nihin kuwa dadka miisaama ma nihin kuwa agtooda aqoon iyo cilmi yaallo qarin ku kala baxaana aqoonta ilaahay siiyana ku kala baxa kuwa markay iskhilaafsan yihiin af wax isugu sheegaana gogol wada fadhiisto garnaqsadaan laakiin Puntland baa dumaysa keligaa ma kuwa badan oo adoo kala baa ku naaloon jiray balse waa ku bay qaadeen Puntland cadow badan bay leedahay cadowgeedu maanta kan federaalka ee dalka madaxweynaha ka ee xasan munaafiqa miyaa maanta idinka dahsoon inuu yahay cadowgeeda koobaad waa maya idinka dahsoon waxaa loo baahan yahay marka inaanu isku tashano dirin ku wada fariisano haddaan doorasho qabsanayno haddaan qabsaneen haddaan dhahayno daniyo weligaana maamul haddaan dhahayno annaga noo taala laakiin siyaasad xamar siyaasigii lagu arko oo muruq laga dareemo oo xasiloonida iyo amniga farta ku fiiqayna mid baa iga mucaarsan aniga mid baa dani iga mucaarsan xasan baa jeclaysiiyey sababta dani waxbaan iskuna markaan arko cadow iga shisheeya dani walaalkaybu noqonaya hooyada yaa bahay dhalay Puntland adeer waa ka weyn tahay shacabka reer Puntland mid baan leeyahay wardani mid baa iga mucaarsan aniga waa maya laakiin markaan arko cadow iga shisheeya Puntland duminaya isku xirnaanta Puntland iyo jiritaankeeda iyo dastuurkeeda iyo khumkhumkeeda dekadaheeda iyo aeroboorradeeda iyo horumarkeeda ka xun oo raba inuu dumiyo oo ka dhigo maamul asagu u taliyo oo farta ugu yeero farta maamul staafka lacagta u siiyo maamul staafka u biilo kam yiraahdo kam saaso istaago hebel xaadir saada sida maamulada qaarkood oo kale marka arko mid raba nooca inuu iga dhigo dani muxuu noqonaya hooyaday buu noqonaya dani hooyaday aniga hooyaday buu dani noqonaya jiritaankan inaan ilaalsano wax nagu waajiba isfari mayno oo waa ida qaana waa taqaanaan maalmaha xun waa taqaanaan cadowgiina siyaasigii annaga ah ee aad ka dareentaan in xasan ka dhaxalayo aniguna fartaan ku fiiqaya idinkuna ka aragtaan farta ku fiiqa ulaha xasana ku dhufan lahaydeen ku dhufta rubaydi sheegay dani baa soo haray doorashadiisa iyo wixiisa soo haray miis baan ku kala xalisanayna dani waa wiilka iyaga shalay aan keenay ummaan magaytii miis loo yeero ismadoona u yeeraan doorashada waqtiga kuma dhameyn ka dhid halka iska dhig hadii la yiraahdo ummaan may inuu diidayo kana amar weyn laakiin yaan nala dhexmarsan Puntland diminteed wadna wanfood hadii la keenayo anigu ayuubana salaansinay ayuubana maanta waxaan ku kalsoonahay markaan shacabka reer Puntland aragtidooda arkay boqolkiiba boqol dani inaan kaga taageero badna shacabka reer Puntland maxay anfacaya marka waxay anfacaya one man one vote in la yiraahdo haddaan caaw xildhibaan u baahdo haddaan rabay maanta inaan wax ka noqdo Puntland one man one vote baa anfacay laakiin yaa anfaci mayso in la yiraahdo islaamkii ka soo qaado warqad ka soo qaado hebelna ku ogolaado ama madaxweynaha markaa jooga ha ku ogolaado ama nin in la igu xiro anoo shacabkayga iyo wada baahan yihiin warma waa footaasan ku ogolaanahay anigu laakiin wixii dani lagu dhayilayo oo warma wafaadka ka soo horjeeda oo loo arko dara asaga shakhsiyana siyaasiyiin baan leenahay wax garad baan leenahay madaxweynayaal hore mas'uuliyiin hore joogta kuwii dastuurka qoray baa joogta ismadayadii baa jooga Puntland dhisay madal inta loogu yeero sida ka aqbali meel madaxweyne khalad laakiin Xasan wuxuu maanta ku hadlay aan ka wada mideysnaan waxaan u maleynayaa inuu sidii waxba u dhimin waan nimiday anagu nimiday cadaawada uu noo qabo ayuuna Xasan munaafiq cadeey waxaan ku kalifay wax kala ma ahe asagoo habeen hore ku haya dani yaani waxba isku ma hayno siyaasiyiinta reer Puntland ayaa halkaan soo fariistay
runtaan oga sheegay qodobaday isku hayaan maan sheegay inta shilay kala kacay maan sheegay hiidkaa gaaray hiidka markaasuu habaar bilaabay habaarku xaajo rag ma xasanow ubooyinkaaga soo dhaanso baraxaya soo istaag waa dagaalami jidhay haddii ala kuray waxa haystid soo haystid soo dagaal tag xaajo ragtaas ah laakiin habaarku xaajo rag ma habaarku xaajo rag ma furmahaaga soo gal al-shabaabkii xaggaa iyo garaaca ka soo rog halkaan iyo garaaca gaalkacaya soo gal maar baan ku kala caalamaanayna maar baan ku kala caalamaanayna hadba ka ayaga adkaada reerka u haraya laakiin habaarka iyo doqonnimada iyo haddii ala kuray aqli ku ciyaarka iyo maskax habaarka xaajo rag ma xaajo nasabna ma xaajo abgaalna ma dib ugu laabo cadaaladda waxaan adiga kaa soo raadinayaa waxaan adiga nasabada kaa soo raadinayaa waxaan dowladnimo ku hoos fadhiisanayaa markaad hooyada iyo aabaha u cadaalad fashid xawaadle iyo abgaal u cadaalad inta abgaal inta aabaha siisay reer aabaha intaa siisay bal xawaadlo si maalintaas kusoo raadsanaya cadaalad nin hooyada iyo aabihii u cadaalad fali waayey miya anigu hoos fadhiistaa tayday noqotaa manin loo turo anaa tayda noqotaa anay tayda noqotaa 100 milyan oo beesha caalamka haystayna anaa kaa qardoofsaday kuwa anaa gufil saaray ingiriiskana waa aragtaa maanta in lagaa karsaray waxaad ku aadinta weyday mooryaan ma daba istaagi karaanu puntland baa la yidhaahdaa dadkaan u sarreeyaa hay dhaqaalaan leeyahay laba dekadood baan leeyahay 3 eeraboor baan leeyahay waa isku filnahay halkaas anoo degan harti weyne ah koombada xunta ee aasidido dhib umada ku baaranaysin dhif anaa cag baan kaaga dhif anaa ku siiyey meesh geesagaa dhib ka soo gooso halkaa habar habeen dambana masaajidka jaamaca jooga yaan la isoo sawiri aad baan idin salaamaya leega daba hadli mayo intaas waa qaba xasan nabaradaas ku seexdo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh